أمي يا حبا أهوى يا قلبا أعشق دنيا يا شمسا تشرق في أفقي وردا في العمر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، walaalayaal sidaan idin iclaaminay waxaa caawa halkan nooga furmahayo nadwadii bisha ramadaan loogu talagalay, oo waxaa weeye aan kusoo dhaweynayna bisha ramadaan, leanna ramadaan waxaa weye marti bay noo tahay bisha. marka nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yihi man kana yu'minu billahi walyawmi alaakhir falyukrim dayfahu. marka bisha martida noo ah ayaa waxaan go-aansanay in aan kusoo dhaweyno qaab aada u wacan oo culammada iskugu keenno si bal insha allahu tacaala wixii fadaaisheeda iyo axkaamteeda ay wax oga taabtaan, ummadana oga jaahil bixiyaan. nadwadeenu waxay noqon doontaa 3 qaybood. qaybta koowaad waxaa ku horeyn doona sheekh maxamuud shibli xafidahu llahu tacaala, oo noo taaban doona fadliga iyo faa-iidada bisha ramadaan ay leedahay. waxaana siinaynaa 20 daqiiqo insha allahu tacaala. waxaa noogu xigi doonaa sheekh maxamed cabdi umal xafidahu llahu tacaala, oo axkaamta bisha ku saabsan ka hadli doona. qaybta saddexaad waxaan u furaynaa su-aalo culimada la weydiinahayo. shardi waxaa su-aashu inay qoraal tahay, su-aal afka laga weydiinaya maaha insha allahu tacaala. marka saa dadka hawla socdaan, sheekh maxamed laftigiisa 20 daqiiqa ayuu qaadan doonaa si waxaa waqtiga aan u ilaashano. qaybta su-aalahana intaa kama badnaan doonto, ina 20 daqiiqay noqonaysaa hadduu alla subxaanahu watacaala yidhaahdo. waxaan soo dhaweynayaa sheekh maxamuud shibli xafidahu llahu tacaala oo noo furhaya nadwada qaybteeda koobaad oo fadaa'ilu wa fawaa'idu shahri ramadaan ku saabsan. falyatafadal mashkuuran maajuura. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، إلهي خيرك هنا وافجيه حقنا هنوgu sugo. waxaan rabaa inaan soo koobo muhimaddu waa axkaamta, fadaa'ilka iyo fawaa'iduna waa gogol xaadh iyo dhiirigelin. fadaa'ilku waa fara badan yihiin, nusuusta ku timidna aad bay u badan tahay. tusaalayo waan ka soo qaadi doonaa. fawaa'iddii xikamka culummadu ay sheegeenna waa fara badan yihiin, iyagana dhowr baan ka soo qaadan doonaa si aan u ilaaliyaa waqtiga xaad u xadidan ay maamulku soo qoondeeyeen. fadaa'isha ramadaanka marka koowaad waxaa ka mid ah in kitaabka qur-aanka ilaahay la soo dejiyey. kitaabka qur-aanka ah ee liibaanta labada daaroodba ay ku jiraan, bisha ramadaan buu soo degay. saa darteed baa soo degitaankiisiina mid barakaysan lagu magacaabay. shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aanu, bishii ramadaan ee qur-aanka la soo dejiyey. innaa anzalnaahu fii leylatin mubaaraka, habeen barakaysan baan soo dejinnay. habeenkaasoo qiimo weynna ku fadhiya, bisha ramadaanna ku jira baa qur-aanka aynu aqriyayno laguna liibaanayo labada daaroodba. diinteenna iyo caqiide iyo axkaam iyo camalna asaaska iyo saldhig iyo lafdhabarta u ah waa bishii rabbi uu doortay subxaanahu wa tacaala inuu soo dejiyo. saa darteed bishu bilaha kale waxbay dheer tahay, wayna ka fadli badan tahay. arrinta labaad ee ka mid ah bishan fadligeedoo tii hore la xidhiirta, habeenkaas fadli gaaruu sii leeyahay. khayrun min 1000 shahrin waay. 1000 bilood buu la ajir yahay laguma dhihin. hal habeen oo bishii ka mid ah
baa 1000 bilood ka khayr badan 1000 bilood haddii sanad loo bedelo waa 380 sano iyo dhowr bilood wey dhowr iyo 80 sano waan laylatul qadri ku jirin halka habeenay laylatul qadriga ah baa ka khayr badan la mid ma uu ka khayr badan yahay inta in leeg buu dheer yahay Allahu a'lam qadarka uu dheer yahay leeno ma sheegin laakiin intaas aan wax loo dhiga lahayn habeenka maadaama uu ku jiro bisha uu ku jiraay fadli ya abaal dheeraada iyo qiimo dheeraada bay ku leedahay inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khayrun min alf shahr nabiguna xadiis buu ku tilmaamay calayhi salaatu wassalaam aan wax ka sheegi doono waxa kamid ah fadliga ay bishan leedahay dambiga la iska dhaafaa waxaan filayaa sanadkeena soo maray habeen iyo maalinba wax dunuubo fara badan baa la horgufayay dambi badan waxa af laga yiraa waxa dil laga sameeyo waxulka qasad iyo niyya go'aan loogu qabsado Allahu musta'an waxaan filayaa illa man rahimahullah inteena waxa dambigiisii sanad iska daayay bishii hadda tagtay Shacbaan ama aakhirkeeda aan joogno waxay u tirsan yahay ma jira dambigu galay wixii dambi aad galaysay dambiga adduunkana cuquuba lagu muutaa aakhirana cadaab baa lagu muutaa qabriga laga bilaabo ilaa qiyaamada kala dareerkeeda kadib waxa naarta lagu galo waxa qiyaamada la isu cadibo waxa qabriga la isugu ciriiriyo waxa dunyada imtixaanaadka la isugu salido waa dunuubta dadku galayaan wama asabakum min musibatin fima kasabat aydiikum ay dunuubtii baa la isaga dhaqaa dad soo daashood soo dhidido meel aad wasaqda isaga dhaqdo isku nadiifisaad u baahanta acmaasha dunuubta lagu dhaqo kamid yahay soomka iyo bisha ramadaani nabiga sallallahu alayhi wasallam wakiilaha man saama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbi qofkii sooma bisha ramadaan isagoo ilaahay maalinka ila rumeeyay rumaysan yahay iyo ajir uu ka raadinaya ay ka taheen dan kala kala ahayn oo amalkiisu ikhlaas yahay dambigiisii hore dhan waa loo dhaafayaa soonkeeda kaliya maaha qiyaamkeeda habeenkiina ku dar isla xadiidkaas waa Bukhari iyo Muslim labaduba waa Abu Hurayra ka warinayaan isna wuxuu leeyahay markale man qaama ramadaana iimaanan wa ihtisaaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ramadaan ninkii qiyaamkeeda iyo salaadeeda habeenkii tukaday oo isaguna ilaahay dartii iyo daacadnimo iyo ajirdoon ka tahay dambiga hore waa laga dhaafayaa soonkina waa lagu dhaqayaa qiyaamkina waa laga dhaafayaa markale nabiga sallallahu acmaal buu tirinayaa oo soonku kamid yahay waxa kamid ah jumca ila jumca laga gaaro wa ramadaan ila ramadaan bisha ramadaan laga gaaro mukaffiratun lima baynahunna ma lam tuqshal kabaa'ir ama idha ijtanibatil kabaa'ir xadiidkani wuxuu ina baray dambiga la isugu dhaafayo wuxuu u badan yahay kan saqaa'irta yar yarka kan waaweyn gaaraan xaq aadama haduu la xiriiro cafiskii aadamaha loo baahanaya taa waxa looga jeedaa inaadan isdhehin inta dadka layso oo dadka dhacdo oo dadka wax iska daba mariso oo dadka ku xadgudubto ayar soonka dhaqi wixii xuquuq bini aadama meesha kuma jirto soonku wuxuu kaloo kamida fadligiisu si gaar ah in la umraysto cidii kari kartay heli kartana waa la isugu booriyay oo nabigu wuxuu ku magacaabay sallallahu alayhi wasallam umratun fi ramadaana تعديل حجة حج بقول لك أنت وبخاري ومسلم من حديث ابن عباس رمضان كل عمريست حج بقول لك أنت حج بيكابو ذي ساماها لكن حق أجر كي الثواب كان لوجت هذا عمرتي بش شعبان لا عمريستي يمد الشوال لا عمريسنا ياي لا أجر معها عمرة بش رمضان لا عمريستي صلاة الليل كلا أجر معها صومك كلا لا أجر معها عمرتك كلا لا أجر معها صادرت عمرة رمضان حج بي لا جرتهي طبعا إذا حجك هو واجب يصننا واجب كامر ولي بكفضل بدن وحاكم إذا بشو مركز يسوق قشو البابada jannada waa la furaa albaabada naartana waa la xiraa shayaadiinta kuwii khatarta ahaa ee khubarada ahaa ee ku murxay ee gaangistariinta ahana waa la xiraa saadarteed baa dadka khayrku u sahlanaada in la soo yimaado masaajidu ay sahlanaata ila aakhirih
ولذلك النبي قال له عليه الصلاة والسلام مر وحلي حديث أنس لقى وريني أحمد النسائي ورينيان هذا شهر رمضان جاءكم وبشهر رمضان بايدين تمت تفتح فيه أبواب الجنان جنة الباب إذا الله فريا وتغلق أبواب النار نار الباب إذا والله حريا وتسلسل الشياطين فيه الشياطين شياطين السلسلة بر حرقا له حريا شياطين تودن معها سيد حديث أبو هريرة وشيغيو إمام الترمذي ابن ماجه يورينا يعني حسن كا إذا كان أول ليلة من شهر رمضان هبينك كو هدي لقار أي بشو بلا طبع سفدت الشياطين ومردت الجن شياطين تيجينك كو ذي خير كدراية مدحاتك خطرتها بعد حرحرية الباب النار الله فريا هل باء الباب فران مايو وحي بلدك ويلي جرا دم با لا سو يرينيا albaabada jannadana waa la furiyo midix xidhnaan maayo xagga samadana waa laga dhawaaqayaa ya baaqi alkhayri aqbil wa ya baaqi alsharri aqsur warkii khayr doonayo soo dhawow kii bala iyo shar doonayo gaabso wax la haro wax reebo wuxuu yiri walillaahi utaqaa'u minan naari ilaahay dad buu naarta ku xoreeyaa habeen kasta habeenka sadad baa naarta laga xoreeyaa طبعا adu habeen hadaad dadaasho ma hubtid inaad ku jirto laakiin waxa la rajeenayaa hadaad habeen walba dadaasho chance iyo fursad hal habeen ay haysatay 30 inaad haysataa ay kala fiican kala chance iyo fursado badan marka la nabi wuxuu leeyahay taakum shahru ramadaan shahrun mubaarak wa habeen bil barakaysan soonkeedu waa waajib qiyaamka sunnada habeenkii la tukadiyo taraawiixduna waa sunno albaabada jannada la fura albaabada naarta ee jaxiimana waa la xiraa maradatu shayaatiin kuwi madaxaadkaana waa la xirxiraa habeen baa ku jira ka khayr badan kumbilood qofkii habeenkaas seegaay oo garan mara oo haleeli waayana khayr baa la garamariyay ninkaas qof khayr la garamariyay weeye waa qof khasaaray weeye waxa kale oo nabigu noo sheegay kamida fadaa'ilka soonku آخر وكودودي وقت قيامة الله يسكنه هذا محكمة على دون كادير لا تجو قريقاني الله يربى راسته كودو هذا فديه آخر وحكودو هذا طل يدد معها لكن عملك صالح كودو هذا نبي أنه حليه الصنك يا قرآنك والشفاعة قادان قفك صنك وحكودو هذا يا ربي يو مش أنت مالنا هاي صلاة صباح إلى المغرب أنت يوم حيسي عندي يعبتانكي iyo shahwadii ay naftu jecelayd baan ka hor istaagay hadda ana ergow ah ana dacwo ah in dacwada la iga aqbalo la ii sii daayaan raba quraankuna waa soo istaagi soonku maalintii buu ku dooday quraankuna ilaahayow habeenkii baan hurdada u diiday aniguna anna habeenkii baan hurdada u diiday maanta ergaan ah ergada la iga aqbalo fayushafa'ani fihi labadaba ergada waa laga aqbalaya soonku hadaba waxaad u baahan tahay maalinta qiyaamada la qaawan yahay qoraxduna madaxa dushiisa taagan tahay de naartiina ay soo fakanayso oo burizatil jahiim lil ghaawina ay tahay maalin aan taliya qaraabo lahayn maalin aan dhar la qabin oo la kabala yahay nin iyo amalka maalinka ay tahay wax ku dooda waad u baahan tahay qaraabo ma lehe laakiin tolka iyo xigtadii iyo looyarku waa amalkaaga saalixa quraankaas iyo soonkaas oo bishan isgalayna hadaad ku dadaasho looyar adag waayo ku doodaya si fiican bay kugu doodayaan intaas waqtiga kooban darteed marar badanna munaasabadaha ramadaanka dhexdiisa fadaa'ilka ku maqli doontaane aanu gudbo qaybta labaad ee kelimadayda faa'iidada soonka aan saddex kaga soo gaabsado faa'iido diineed faa'iido bulsho iyo faa'iido shakhsiya caafimaad buu intaba leeyahay ama intabana si guud nusuustu waa u tilmaantay ama faa'iidada diineed diintu wacdi alla ka cabsi isugu yimaadaa baa la yiri wax walba oo laga sheekeeyo wacdi gunaanadka iyo biyo dhiciisu ilaahay ka cabso wuxuu ku dirayna samee wuxuu ka reebayna ka fogow soonka quraanka sheegay la'allakum tattaquun waxaad mudan tihiin alla inaad ka baqdaan soonku alla ka cabsi
buu qofka gaarsiiyaa siyaabo badan iyo wajiyo badan buu ku gaarsiiyaa alla ka cabsiga waxaa ka wah nicmada ilaahay inaad ku shukrido markay gaajadu si fiican kuu qabato baad cunnada iyo risiqaad haysata macaankiisa dareentaa hurdada waxaad garataa qiimaheeda markay hurdalaan kugu dhacdo biyahana waxaad garataa wanaagooda markaad oonto cunnada wanaaggeedana waxaad garataa markaad gaajooto cunno iyo cabitaan ilaahay ku siiyey waxaad saa isaga daaqaysay iyo adoo sooman waxaad ku afurtay inaad haysato dadna ayna afur haysanin waxaad xasuusanaysaa waxa ilaahay ku siiyey nicmadiisa adoo huraya baad maqribkii qac biyo ka siin adiga dhan waad qaboobi walidaalika nabigu wuxuu dhihi jiray markuu cabo biyaha afuro dahaba dhamau wabtallat alcuruuqu wa thabata alajru insha allah oonkii waa tegey xididadii qalalayna waa qoyeen ajirna waan ka helaynaa insha allahu tacaala nicamka ilaahay baa lagu xasuustaa waa marka koobaad waa mar labaadoo soonku wuxuu sabab kuugu noqon ikhlaas keligaa baad tahay albaab baad soo xidhatay ma cunaysid ma cabbaysid maxaad ka cabsanaysaa allah waayo ilaahay baa ku arka ikhlaas soonku waa camaasha ikhlaaska dadkaa kuma ogaan karaan keligaa baad socotaa gaari baad keligaa ku jirtaa duur cidlaad keligaa maraysaa guri baa keligaa kuu xiran waxa kaa celinaya waa alla cabsigii saasoo cabsidaya ikhlaaska kuu baraya wixii shahawaadkii iyo nafta inaad ka adkaato dhibka taacada iyo gaajada iyo oonka inaad ku sabirto dhibka nafta oo laga xakameeyo shahawaadkay jeclayd aad barato siyaabo fara badan oo kala duwan buu alla cabsidiisa kugu xaqiijinaya walidaalika nabigeenu yidhi calayhi salaam man lam yadac qawla zuuri walcamala bihi falaysa lilaahi xaajatu fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah qofkaan dembigii iska daynin cunno iyo cabitaan baan daayay alla agtiisa qiimo kama laha nuxurka ujeeddada maqsadku waa cabsi ilaahay oo dembiga laga tago waa cabsi ilaahay oo waajibka la ilaaliya taa haddaadan lahayn cunno iyo cabitaan baan daayay ujeeddadan ugu weyn maaha mar kale shahawaadku ka hortagaayo arrimaha bulshada iyo ijtimaacigana bulshadana dawi u yahay labadaba dawi ugu yahay calool dheragtay baa macsi iyo zina aada nin dhergay baa daydaya nabay gaajo beerka kaga dhagtay jirkuna dhacaankiisii yaraaday ma dhacdhac badna walidaalika nabigu yidhi yaa macshara shabaabi man istataaca minkum ulbaa'ata falyatazawaj ninkii guursan kara ha guursado qofkaan guurkii iyo kharashkiisii iyo culays ka bixi karinna facalayhi bisawm soonkaa ku dadaalo ha daa'imo soon maalin iyo laba maaha joogto ka dhig maxaa sababa fainahu lahu wijaaun waxaa weeye karkii shahwada ee ku karkarayay buu kaa saarayaa waa ku dhufaanayaa wey irbadna kuguma dhicin oo berri markaad dheef qaadata halkaagii baad ku soo noqon laakiin karka cunno calool dharagtay baa wax daydayda caloosha waa la gaajiyaa markii aad kari weydo ay suuq wareeg iyo waxfeeris kugu bilowdo gaajaa lagu taagaa soon dhinacna ajir baad ka heli dhinacna dadkii dee gabdhahaad caydhsan lahayd ee xaafadahaad u dabamari lahayd ee alluqyada wareegi lahayd ee bulshada fasaadin lahayd buu soonku xanibayaa dhinac kalena waa yahayoo markaad gaajooto dadka gaajaysan baad xasuusataa ummadii gaajaysnayd fuqaradii iyo masaakiintii ha loo gargaaro walidaalika nabigeenna waxaa lagu tilmaamay ramadaanka ajwada maa yakuunu fii ramadaan bisha ramadaan buu ugu deeqsisanaa ramadaanku iftaaru saa'imka lagugu dhiirigeliyo qof sooman qofkii afariyo ajirkiisoo kale u leeyahay waxaa layna barayaa oo soonku ku barayaa dad baa mar walba gaajaysan dad baa soomanaayoo waxay ku afuraan aan haynin ummadda muslimka adiga raashin baad qubaysaa ummaddii muslimka ahaydna way gaajaysanta dhinaca saddexaad ee ugu dambeeya fawaa'idda jirkii caafimaad buu u leeyahay jirkan si cunnada loogu waday cudurka wada qaaday cunnada laga yareeyo iyo cabbitaanka say suntiya wax badan uga baxdo dheefshiidahan dhibkiiyo culayska laga dayn waayeen saacadba nasanaynin ee tii hore isagoon dhammayn middaba laga dabageynayo inuu yaraha nasto wixii hadhaagaya jirka ku jiray inuu kala sifeeyana uu wakhti u helo axaadiis badan baa laga faa'iidaystay baa leh arrintaas mar nabigu xadiidkii miqdaam ibn cabdi karim wuxuu yidhi cudur oo dhanba calool la tan dhaafiyaa laga qaadaa calool aad loo buuxiye baa cudur asaaso ah maa mala'a bnu aadama wicaa'an sharan min batnih
bini aadamku weel calooshiisa uga khatarsan ma buuxiyo bixasbi ibni aadama luqaymaatun yuqimna sulba wax yaroo uu cunay oo jirkiisii xooggiisii dhabarkiisa adkeeyey baa ku filan hadday laga maarmaan noqoto saddex u qayb mid waa cunnada midna waa cabitaan midna oksijiinka iyo hawada isdaba maraysa meel u banneede tiq haddaad wixii wada xidho laakiin waxaa la yidhi rag baa la yidhi warbaasha dee aadantay waxu cuneen fa uluثu liطacaamihi baa lagu yidhi markaasuu wuxuu yidhi kullun adraa biuluثi qof dadku isku calool qaad meehee qolba uluثki isagaa yaqaanee shahukaadi buu yidhi adikayga anaa ka aqaane inta taadoo kaleeta maahan taxdiidka waxaa loo daliishadaa cudurro badan bay calool buuxda keentaa caafimaadkuna waa soonka haddii fadaa'ilul acmaalka loo daliishaday cinda jamhuuri ahli ilcilmi xadiidka daciifkan aad u fogeyn suumuu tasixu bay keeneen isagana sooma waad caafimaadaysaan mar kale waxay keeneen xataa waxaa lagu daweeyaa cudurrada dawadooda la waayo suuxdin soon lagu daweeyo ma maqasheen suuxdin soon lagu daweeya waxaa loo daliishaday xadiidka inna shaytaana yajrii min ibni aadam majra dami ee saxiixaynka bukhaari iyo muslim anas iyo sofiyaba ay ka wariyeen waxaan ku gabagabaynayaa nugta arrintaa la xiriirtay waxaa qoray ama laga qoray sheekh naasirdiin alalbani raximah allahu tacaala liqaa'adka madiina marka laga duubayey wuu ka sheekeeyey qisa taasaan kusoo gabagabaynayaa wuxuu yidhi nin reer dimashq ahaa baa suuxdin ku dhacday dhakhtar kastuu tagay uu ka quustay kadib uu lubnaan tagay isbitaal maraykanku leeyahayoo waxaa koronto iyo waxba ay ku qabqabteenoo waa laga quustay isagoo rafaadsan buu noo yimid buu yidhi aniga isoo martay buu yidhi soon inaan isku daweeyey intanaad u rafaaday oon xanuunno meelaan kasqaada waayey baan soonka la ysku caafimaadiyo baan sameeyey oo muxuu ahaa 40 maalmood baanan biyo mooyeen wax kala cunin buu yidhi kadib baan cunnada tartiib u bilaabay waan caafimaaday ninkii waxaan ku yidhi warniyow taas anuu ku caafimaadaye bal 40 maalmood biyo mooyeen cunnaha cunin wuxuu yidhi ilaahay wuxuu qadaray 40kii maalmood markay u dhammaatay ninkii suuxdintii waa ka caafimaaday waagi dambe wuxuu noqday buu yidhi madaxa ay xanuuni soon calooshaa layga hayaa soon wuxuu dhogta ugu yaabadayd wuxuu yidhi nin baa u yimid buu yidhi wuxuu yidhi sheekhow hooyaday waa waayeel waa ku rafaadsanna 2 gabdhoodoo kalkaaliyo caafimaad ay dhashay iyaga laftoodu way ka daaleen cunnadeedii iyo haynteedii waa waayeel sariirta saaran naftaan nagu hays qayladii iyo keenadii baan ku rafaadnay niyo maxaan ku daweeyaa buu yidhi hooyada cunnada ka joojiyo biyo uun sii buu yidhi 40 maalmood wuxuu yidhi warduqda waayeelka haddaa cunno ka jooji wayba dhiman hadday dhimatana ma rumaysid waxaan kuu sheegayo laakiin way ku caafimaadi hadday dhimatana qaylada aad ka raysa buu yidhi wuxuu yidhi waa qariibka waxaa ka mid a yaab kale 40 maalmood maynan gaadhinee biyay siiyaan hadday qayladana dhagaha u dhigana buu yidhi war cunnaysiiya celijuuq uma dhaale biyoon baa loo soo dhigaa naf markay qabataba biyay cabtaa wuxuu yidhi markay 20 beri marayso bay duqda intay kacday baynay adeegata bilowday 20 kale markay ku dartayna orod bayba bilowday way oroday markii intaas ku soo gabagabeynayaa caafimaad badan buu mar kale uga jeedaa billahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ الله سبحانه وتعالى حسيب ورقع سنة وقيل حضرت ونسلي طبعا وقتي وقلت ذلك الله سبحانه وتعالى حسيب مركولي وحقا في جرنا ندودي الشهر رمضان المبارك ويديس وطبق المسجد منظمة مساجد مجالنا نيروبي وحاوي أيوة اسمك عشان هي مؤسسة الإحسان هي مؤسسة البي هي منظمة المدارس القرآنية وكل مرتنا مرفع لي والملجوة عاوة نلوك يهوي وحاوي منظمات الدعوة ينيرون الأسبوع معنا سيد شهر رمضان وسوء دوينهم وحاول بنا أي تلغة الندوة وحاوي أحكام الصوم ونسل بالجنين أيوه سماحة الشيخ الوالد محمد عبد الوهاب فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وترى لي هذا وحقا وين راه ركبسناهي
marka codkayga inuusan clear ahayn baa iska dhici karta aad bay runtii munaasib u tahay bishii ramadaan oo ina soo haysa in axkaamteeda iyo wixii ku saabsan dadka lagu baraarujiyo oo lagala hadlo waana cilmiga hadda wakhtigan munaasibka ay tahay in xoogga la saaro si uu ruuxu ilaahay ugu caabudo calaa cilmin isagoo garanaya wuxuu samaynayo waxa ka khaldan siduu cibaadada uga faa'iidaysan karo bisha intaynan dhalanin waxyaalaha lagu soo dhoweeyana waxaa ka mid ah inaad barato axkaamteeda laanna haddaad yeeli weydo waxaa dhici karta dadaalkaaga soonkaaga salaadaada cumradaada dadaalkan faraha badaneed bixinayso inuu noqdo halbacaad lagu liso inaad tacab khasaartaa dhici karta oo adigoo isle waxbaa kuu hagaagsan inuu kaa hallaysan yahay maxaa yeele aqoonteedii ma lihid taa way midda markaa qur-aanka iyo sunnadu bayna amrayaan inaan baranno axkaamta diinteenna iyo waajibaadka ilaahayna saaray tabaaraka wa tacaala wakhtigu waa iska kooban axkaamta bisha way fara badan tahay ramadaan acmaasheeduna way fara badan tahay laakiin axkaamta soonka ayay kelimadu ku saabsan tahay axkaamta soonka lafteedu way fara badan tahayoo wax 20 daqiiqa lagu koobi kara ma aha 20 daqiiqo lagu koobi kara ma aha way ka badan tahay laakiin si kooban haddaan inta muhiimka aan isleeyahay way muhiimaan ka tilmaamo qaybta ugu horeysa waxa weeye bisha dhalashadeedu maxay ku sugnaataa bishii inay dhalatay maxaa lagu gartaa saddex mid ka mid ah ayaa bisha dhalashadeeda ay ku sugnaataa wabitaali axkaamteediina ay ku bilaabataa ta koobaadi waxa weeyaan ru'yatu alhilaal bilcayn in bishii aad ishaada ku aragto bishii oo dhalatay haddaad aragto markaa soonkii axkaamtii waajib bay markaa noqonay axaadiid aad u fara badan baa nabigeenu yidhi sal alla alay wasalam suumuu liru'yatihi wa aftiruu liru'yatih bisha araggeeda ku sooma bisha araggeedana ku afura aragga isha dhib ma laha in la isticmaalo ama meel sare la fuulo ama buur la fuulo ama diyaarad helicopter la kiciyo ama baashan weynaysada ee muxuu ahaaye la isticmaalo mushkilo ma leh muhiimaddu inay ishu aragto baa muhiima taa way ku sugnaataa qodobka labaad ay ku sugnaato waxa weeyaan shahaadatu shaahidin waaxidin cadlin cinda akari ahli ilcilm hal ruuxoo muslim oo caadil ah inuu markhaati furo bishii inuu arkay xadiidka cabdullaahi bni cumar baa taana ku tusaya oo wuxuu leeyahay tara'a annaasu alhilaala fara'aytuhu dadkii baa bishii raaraadiyey nin walba inuu arku isku dayay anigaa arkay buuhi markaan bishii arkay baa nebiga u sheegay buuhi sal lla alay slam fasaamahu wa amara annaasa bisiyaamih markaasuu nebigu bishii soomay dadkana wuxuu amray inay soomaan waa hal ninoo saxaabada ka mid ah oo bishii keligii arkay oo soo sheegay oo warkiisii lagu soomay dadkana la amray waa qodobka saddexaad ee bisha ku sugnaato waxa weeyaan ikmaalu ciddati shacbaana 30 bisha shacbaan ee ramadaan ka horaysa soddonkeedu inuu buuxsamo oo dee bishu carabiga ah soddon baa u badan 29 way noqotaa haddii shacbaan soddonkeedu buuxsamo qatcan waa ramadaan ama bishii ramadaan ha la arko ama yaa la arki waatuu nabigu leehy sal alay wasalam xadiidka saxiixaynka ku yaala min xadiid ibni cumar fain gubbiya calaykum
faakmiluu ciddata shacbaana 30 habeenkii bisha aad filayseen inaad aragtaan haddii laydinka daboolood arki weydaan shacbaan 30keeda dhammaystira buu nabigu sal alay slam shacbaan 30keedu hadday dhammaystiranto khalaas waa la soomayaa marka waxaan culimmada badankood aynan qabin salafka in bisha lagu sugo xisaab falaki ah jamaahiiru ahlilcilmi waxay qabaan xisaabta falaga waa la kaalmaysan karaa laakiin keligeed kuma filla in lagu soomo lagu afuro bal shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu soo guurinayaa arrintaasi inay tahay ijmaac culimmada muslimiintu inay isku raaceen inaan xisaab keligeed lagu soomayninoo lagu afurayn taa waa mi qodobka koowaadoo bishu maxay ku sugnaataa wa qodobka labaad aynu ka hadlayno wuxuu yahay bisha ramadaan soonkeedu xukunkiisu muxuu yahay jawaabtu wax weeyaan waa farad waa tiir ka mida tiirarka islaamka waa waajib qur-aanku ilaahay inagu amray mar kale wuxuu ka cabiray in korkeenna lagu qoray kutiba calaykum asiyaam nabiguna sal alla alay wasalam dhowr xadiis oo xadiistiisa ka mid ah soonka wuxuu ku daray tiirarka shanta ah ee islaamnimadu ku taaganta ijmaacuna sidaasuu ku dureersan ayib bishii baa dhalatay waa hubsannay ama waan aragnay ama waa laynoo soo sheegay maxaa laynaga rabaa waxaa laynaga rabaa kow inaynu soonka niyoonno tabyuutu anniya qabla alfajri intaan waagu baryin habeenkii in qalbigaaga aad geliso inaad soomayso tiirarka soonkay ka midta haddii habeenkaa niyadiisu ku dhaafto haddaada bisha niyooninoo niyada ka tagto soonkaagu wax jira maaha saas daraaddeed baa nabigeennu wuxu uhi sal lay wasalam innama alacmaalu binniyaat si khaasana waxaa ugu soo arooray xadiidkii xafsa cinda ahli sunan oo nabigu uhi sal lay wasalam man lam yubayit asiyaama min alleyli falaa siyaama lah ruuxii aan niyoonin soonka habeennimo intaan waagu baryin soon male buu nabigu uhi sal lay wasalam marka niyadu waa qodobka koobaad waa niyo maxaa la yidhaahdaa niyo waxaa la yidhahdaa waa go'aanka qalbiga waa camalulqalbi waay qalbiga ayaa niyada sameeya haddii uun habeenka xilli ka mida qalbigaaga ay ku soo dhacdo inaad berri soomayso niyadu waa intaa haddaad suxuur u soo kacdo waad niyaysantahay sababta waxa weeye ruux xilli uusan soo kici jirin soo kacay wax soo kiciyey baa jira soo ma yacni wuxuu qalbigiisa ku jira aad soontid sidaas daraaddeed niyada maxalkeedu waa qalbiga waana uun go'aanka qalbiga hal mal ilbiriqsina ha noqotee markay qoraxdu dhacdo ilaa aadaanka dambe ka dhacayo habeenka dhexdiisa xilli uun haba noqoto ilbiriqsina ha noqdee inaad qalbigaaga geliso inaad berri soomayso intaa way niyadu in carabka lagaga dhawaaqo oo la yidhaahdo nawaytu sawma qadin waa khalad waana bidco culimmada qaar ka mida kutubtooda ha ku qoreen laakiin ma sugna loomana baahnaba leanna waxa way niyada qalbigaa iska leh hadalka carabkaa iska leh taabashada gacantaa iska leh socodka lugtaa iska leh niyadana qalbigaa iska leh hawsha waa la kala leeyahay hawshii qalbi lahaa haddaad carab siiso ma aha marka niyadu waa qodob laga maarmaana waxay culimmadeennu ka doodaan ramadaanku markuu saa u soo galo haddaan marka ugu horraysa niyoodo habeenka ugu horreeya inaan ramadaan oo dhan soomayo haddaan niyoodo niyadaa ugu horraysa habeenka ugu horraysa ramadaan oo dhan aan niyooday may ugu filan tahay mise habeen oo dhan habeen kasta inaan niyoodo waa niyo cusub waa masale ay fuqahadu ka doodaan qaar waxay leeyihiin hal niyaa kugu fillaan karta qaarna waxay leeyihiin habeen kasta waa in la niyoodo waa dood fuqahada dhex taalla laakiin waxaa kuu fiican inaad habeen kasta niyeysato oodan halmaamin waad niyootay
soonkii waa kuu guntamay waa kuu xidhmay waagii baa kuu baryay maxaa laga rabaa inaad iska ilaaliso wixii soonkaaga wax yeelaya oo laba qaybood ah soonkii kuu xidhmay wax furaya oo burinaya iyo soonkii kuu xidhmay ajirkiisa wax dhaawacaya labadaaba inaad iska ilaaliso soonka maxaa furoo jabiya dhowr shay waa kow waxaa soonka jabiya cunitaanka iyo cabitaanka qur-aankuna waa inoo sheegay sunnada nabiguna waa inoo sheegtay waana ijmaaca waa laisla ogolyahay caamatlmuslimiinna wayba yaqaanaan waxaa la mida cunitaanka iyo cabitaanka alxuqan almuqadiya irbadaha jidhka bini aadamka dheefiya oo cuntada iyo cabitaanka lagaga kaaftoomo sida middan aanu naqaanoo kale faleebada glucosta jidhka la siinayo ama biyo caadiyaba la siinayo cunnana maaha cabitaanna ma aha laakiin cunnadii iyo cabitaankii bay la macno tahay maxaa yeele maadaama cuntadii iyo cabitaanka ay kaa kaafin karto